الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن داوديال ومنكي وجودن بيه الدنيا كدعي ساعدها إنه صار فنيه إلا أي دقيقة قضى عن معنته برامج كذا هو هيننا وحاكم ذا ترام iyo Netanyahu waxay isku qancinayaan in waxa ay ugu yeereen guusha laga gaaray Iiraan ay ku jaangooyaan xaaladda dagaalka Gaza oo Israa'iil ay dhiiqa ku gashay isla markaana qasaaro culus ka soo gaarayo ciidamada duulaanka ah waxa ka socda Washington iyo Tel Aviv qorshe lagu doonayo in dagaalka lagu soo afjaro si fashilka dhacay loogu qariyo dagaalka Iiraan oo sawir aan dhab ahayn dadka looga iibinayo in la guuleystay taasi oo qayb ka ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil laga badbaadiyo maxkamadeynta ku socota sida uu cadeeyay madaxweynaha Mareykanka haddaba warbixin iyo falanqeyn arrimahan ku aadan iyo waxa ay khubaradu ka tiri ayaan idinku soo gudbin doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falanqeynta wararka kalena waxa kamid ah iyadoo ay soo tarayso cabsida ah inuu dib u qarxo dagaalka Iiraan iyo Israa'iil ayaa dawladda Iiraan waxay uga digtay dalalka dariska la ah inay u ogolaadaan Israa'iil inay u adeegsato duulaan cusub oo ay ku soo qaado dalkeeda wararkii ugu dambeeyay arrimahan iyo xiisadda oo mar kale laba kacalaysay ayaan idinku haynaa barnaamijka dhanka Gaza Israa'iil oo furimaha hore ee dagaalka si ba'an loogu xanuujiyay ayaa wada duqeymo iyo weeraro culus iyada oo tobanaan Falastiiniyiin ahna la dilay tan iyo saaka waa barigii ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil oo si cad u sheegay in la gaaray xilligii dagaalka Gaza si degdeg ah loo joojin lahaa isla markaana laga shaqeyn lahaa sidii afka ciido loogu dari lahaa xukuumadda Netanyahu iyo Ruushka oo weeraro culus iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada gobollo ka tirsan Ukraine arrinkaasi oo taliska ciidamada Ukraine ay qeyladaan ka soo saareen dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ay soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka wararka ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka maanta barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa wararka dhanka Gaza halkaasi oo maanta ay tahay maalintii 105aad ee tan iyo markii Israa'iil ay dib u bilowday ee dagaalka xasuuqa ah ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah ilaa caafimaad oo ku sugan isbitaalada Gaza ayaa xaqiijiyay in ilaa 48 Falastiiniyiin ah lagu dilay ee duqeymo Israa'iil ay saaka ku qaaday meelo kala duwan oo Gaza ah iyadoo xasuuqyadii ay Israa'iil ee wadayna ay weli sii socdaan meelaha duqeynta ba'an lala eegtay ayaa waxaa ka mid ah Khan Yunis oo dhacda koonfurta iyo xaafadda Saytuun ee magaalada Gaza isla wararka Gaza la xiriira inta aynan ka bixin aynu markan eegno war xasaasi ah oo ka soo baxay maxkamad ku taala London taasi oo xukmisay go'aanka dawladda UK ee ah ogolaanshaha dhoofinta qalabka dayactirka diyaaradda dagaalka ee F-35 in loo diro Israa'iil inta lagu guda jiray ee dagaalka Gaza kaasi marka ama go'aankaasi inuu ahaa mid sharci ah sida ay maxkamaddu maanta xukmisay ururka xuquuqda aadanaha u dooda ee Al-Xaq ayaa go'aanka maxkamadda ka hor yimid iyagoo uu ku doodaya in uu jabinayo waajibaadka UK ee sharciga caalamiga ah oo ay ku jiraan heshiisyada Geneva Israa'iil ayaa weeraradeeda Gaza waxay ku dishay 10,000 oo Falastiiniyiin ah kuwaasi oo badankood ay ahaayeen dumar iyo carruur si kastaba ahaatee maxkamadda sare ee UK ayaa diiday cabashadii ururka Al-Xaq ay ku muujinayeen arrintan inay tahay mid sharci darro ah wasiirka difaaca ee UK John Healey ayaa sheegay in hakinta dhoofinta ay saameyn weyn ku yeelan doonto guud ahaan barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 iyo xasiloonida caalamiga ah waa sida uu hadalka u dhigay waa tahay haatana aynu dhanka Israa'iil jaleecno ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak ayaa soo jeediyay in ay lama huraan tahay in si degdeg ah loo rido xukuumadda Benjamin Netanyahu isagoo adkeeyay in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza Barak waxa uu yiri ma jiro wax ka degdeg badan sidii dib loogu bilaabi lahaa halganka lagu ridayo xukuumadda ugu liidatay ee aan abid yeelano waxa uu xusay in dhamaadka dagaalka Gaza uu yahay arrin muhiim ah oo lama huraan ah warkan ayaa imaanaya xilli uu wargeyska The Times of Israel uu daaha ka rogay in mas'uul Mareykan ah uu sheegay in Washington ay qorsheynayso inay cadaadis saarto wasiirka arrimaha istiraatiijiga ah ee Israa'iil si loo joojiyo dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza si kastaba xukuumadda Israa'iil weli si cad ayay u diidan tahay inay joojiso dagaalkaasi inkastoo talooyin ka imaanaya ciidamadeeda military ay tilmaamayaan muhiimadda heshiis lala gaaro Xamaas ay leedahay
wargeyska Israel Today ayaa soo xigtay ilo ku dhow Netanyahu kuwaasi oo sheegay in kaliya qorshaha Witkoff ee heshiiska miiska saaran yahay wixii ka dambeeya taasna waan ku laaban doonaa inay ku laaban doonaan goobta dagaalka. Ehud Barak waxa uu sidoo kale sheegay in haddii wax horumar ah laga gaari waayo wada hadallada lala wado Tehran ay geli doonaan dagaal daalin ah. waxa uu diiday wararka sheegaya in weerarada Mareykanka iyo Israel ay burburiyeen barnaamijka nuclearka Iran waxana uu xusay in Iran wali ay tahay dal ku dhow oo ay inay noqoto quwadda nuclearka leh ee bariga dhexe. Barak ayaa intaasi ku daray soo ismaynan qiyaamin wali kuma aynan guuleysan in aan meesha ka saarno hanjabaadda nuclearka iyo gantaalada ee Iran. waa hagaag markana aynu qoraansanno xaaladihii ugu dambeeyay ee colaadda Ruushka iyo Ukraine oo muddo badan soo jirtay. Ukraine ayaa maanta shaacisay in Ruushka uu weeraray gobolada Kharkiv iyo Donetsk isagoo adeegsanaya ilaa 107 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa soo xigtay ila ciidan oo Ukrainian ah kuwaasi oo sheegay in Ruushka uu ku ururiyay ilaa 50,000 oo askari agagaarka magaalada Sumy ee dhacda waqooyi bari ee Ukraine. ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen ilaa 64 diyaaradood oo drones ah isla markaana ay burburiyeen 10 kale. wargeyska The Wall Street Journal wuxuu warbixin goobta uu ka diyaariyay ku sheegay in ciidanka Ruushka ay ka joogsadeen 20 kilomitir ee magaalada Sumy taasi oo hadda noqotay bartilmaameed cusub oo Kremlinka uu leeyahay. Ruushka ayaa ciidamadiisa ku sii daayay xadka u dhow Sumy kadib markii Ukraine ay laga qabsaday deegaano ku yaala gobolka Kursk. waxa uu Ruushka halkaasi geeyay ilaa 50,000 oo askari isagoo oo tiro ahaan 3 laab ka badan ciidamada Ukraine sida laga soo xigtay saraakiisha dagaalka ku jira. taliyaha guud ee ciidamada Ukraine Alexander Sirskiy ayaa sheegay in istiraatiijiyadda ugu weyn ee Ruushka ay tahay in uu ku daaliyo tiro ahaan ciidamada Ukraine. waxa uu xusay in qadka hore ee dagaalka uu kordhay in ka badan 160 kilomitir sanadkii la soo dhaafay haatanna uu ka kooban yahay ilaa in ka badan 1200 oo kilomitir laga soo bilaabo waqooyi bari ilaa koonfur. Ruushka ayaa mar waliba abaaraya meelaha nugul ee dagaalka kadibna waxa uu xoog saaraya meeshaasi sida Sumy ay u ahayd bishii la soo dhaafay. soo xogeynta Ruushka ee magaalada Sumy waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bilaabay inuu muujiyo carab ku aadan diidmada Kremlinka ee ku saabsan joojinta dagaalka. inkastoo kulamo u dhaxeeya saraakiisha Ukraine iyo Ruushka ay ka socdaan dalka Turkiga haddana Ruushka waxa uu kordhiyay weerarada gantaalada iyo droneska uu adeegsanayo ee uu ku qaadayo magaalooyinka kala duwan ee Ukraine. waa hagaag daawadayaal waxay nagu soo fool leh war ku saabsan Iran oo digniin ka bixisay suurtagalnimada dagaal mar kale dib uga qarxi kara bariga dhexe. xubintii falanqaynta iyo waliba qodobo kale balse marka hore aynu eegno jawiga cimilada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida. aynu ku bilawnay ee magaalada Muqdisho heerkulka cimiladeedu waa 29 degree centigrade jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira xawaaraha dabayshuna waa 30 kilomitir saacadii. magaalada Jigjiga heerkulka cimiladeedu waa 24 degree centigrade jawigeedu waa qorrax xawaaraha dabayshuna waa 28 kilomitir saacadii. magaalada Hargeysa heerkulka cimiladeedu waa 29 degree centigrade jawigeedu waa qorrax xawaaraha dabayshuna waa 35 kilomitir saacadii. magaalada Djibouti heerkulka cimiladeedu waa 45 degree centigrade jawigeedu waa qorrax daran xawaaraha dabayshuna waa 20 kilomitir saacadii. magaalada Gaarisa heerkulka cimiladeedu waa 30 degree centigrade jawigeedu waa qayb ahaan waa mid qorrax leh xawaaraha dabayshuna waa 37 kilomitir saacadii. magaalada Baydhabo heerkulka cimiladeedu waa 29 degree centigrade jawigeedu qayb ahaan waa mid qorrax leh xawaaraha dabayshuna waa 30 kilomitir saacadii. ugu dambeynna magaalada Boosaaso heerkulka cimiladeedu waa 39 degree centigrade jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira xawaaraha dabayshuna waa 16 kilomitir saacadii. intaynan u gudbin qodobada kale ee barnaamijka aynu ku hakano qadar xayeysiisa ee Iran oo ka digtay in dagaal mar kale uu ka dhici karo gobolka bariga dhexe. Iran waxay sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaq kasta oo Israa'iil ay ku doonayso inay ku isticmaasho dhulalka dalalka deriska ah si ay mar kale u weerarto Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqai ayaa maanta oo Isniin ah shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in xukuumadda Iran ay la wadaagtay dalalka ku xeeran dalkeeda
warbixino sirdoon iyo warar la xiriira suurtagalnimada weeraro Israa'iil ay qorsheynayso. Waxa uu intaasi ku daray in dhammaan dalalka dariska la ah ay si cad u xaqiijiyeen inaysan marnaba ogolaan doonin in maamulka Israa'iil uu adeegsado hawadooda ama dhulkooda si Iiraan u weeraro. waxa uu xusay in dalalkaasi ay si buuxda uga warqabaan mas'uuliyadooda sharciga caalamiga ah iyo siyaasad wanaagga darisnimo ee Iiraan kala dhaxaysa. afhayeenka Iiraan waxa uu hoosta ka xariiqay in iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah uusan jirin dal ogolaan kara in dhulkiisa lagu abaabulo weerar ka dhan ah dal kale. Baqay waxa uu sheegay in dhammaan dalalka ay qosayso arrintani ay si cad u diideen wararka sheegaya in Israa'iil ay adeegsato dhulkooda si ay Iiraan u weerarto, isla markaana ay u xaqiijiyeen Tehran in aanay ogolaan doonin arrintaasi hadda iyo mustaqbalka toona. waxa uu carabka ku adkeeyay ugu dambeyn in arrintani weli baaritaan ay ku jirto iyadoo oo ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha amniga Iiraan ay si dhow ula socdaan wararka arrintaasi la xiriira. waa hagaag daawadayaal waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysa ee barnaamijka oo ah xubinta falanqaynta taasi oo aan alaabo ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo weliba sirdoonka. sidoo kale xubintan waxaan ku soo qaadanaa oo ku qaadaa dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Trump iyo Netanyahu waxay isku qancinayaan in waxa ay ugu yeereen guusha laga gaaray Iiraan ay ku jaangooyaan xaaladda dagaalka Gaza oo Israa'iil ay dhiiqo ku gashay, isla markaana khasaare culus uu ka soo gaarayo ciidamada duulaanka ah. waxa ka socda Washington iyo Tel Aviv qorshe lagu doonayo in dagaalka lagu soo afjaro si fashilka dhacay loogu qariyo dagaalka Iiraan oo sawir aan dhab ahayn ee looga iibinayo in la guuleystay dadka, taasi oo qayb ka tahay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil laga badbaadiyo maxkamadeynta ku socota sida uu cadeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. haddaba arrimahani maxay ka yiraahdeen khubarada iyo falanqeeyaasha arrimaha gobolka? falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayayo in uu ka faa'iideysto weerarka military ee lagu qaaday Iiraan si uu u gaaro guul siyaasadeed oo ka caawisa saaxiibkiisa Israa'iiliga ah ee Benjamin Netanyahu in uu ka baxo jahwareerka sii xumaanaya ee Gaza ka haysta, isla markaana uu amba qaado saldhig ku habboon heshiis lagu joojinayo ee dagaalka loo adeegsan karo kaasi oo loo adeegsan karo olole doorasho. sida ay ku qiimeeyeen isbeddelka ku yimid mowqifka Trump waxa uu muujinayaa rabitaan cad oo ah in la badbaadiyo Netanyahu oo sidoo kale ay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ku baadigoobayso dambiyad dagaal oo uu ka geystay marinka Gaza iyada oo loo marayo heshiis goboleed oo fura ee dariiqa lagu joojin karo dagaalka, korna loogu qaadi karo hanaanka caadiyeynta xiriirka gobolka, isla markaana dib loogu habeeyo xaaladda gobolka si ay uga faa'iideystaan labadaba waa Washington iyo Tel Aviv. Trump ayaa bartiisa bulshada waxa uu ku sheegay in uu heshiis ku socdo kaasi oo lagu joojinayo dagaalka Gaza. dhanka kale warbaahinta Israa'iil ee Kan ayaa sheegtay in qoraalada Trump aysan ahayn kuwo iska yimid balse ay qayb ka yihiin qorshe ballaaran oo lagu joojinayo maxkamadeynta ka dhanka ah Netanyahu, isla markaana lagu xalinayo arrimaha waaweyn ee gobolka ka jira sida xiisadaha Gaza iyo Iiraan. qoraaga iyo falanqeeyaha arrimaha siyaasadda Ahmed al-Haylah ayaa aaminsan in howlgalka ciidamada Israa'iil ee Gaza uu muujinayo guuldarro joogto ah maadaama awoodaha military aysan keenin wax guul ah oo dhab ah sida soo celinta maxaabiista ama jebinta iska caabinta, taasi oo ku qasbaysa go'aan qaadayaasha in ay ka fikiraan xal siyaasadeed oo wajigani lagu badbaadiyo. qiimeyntani waxay la jaan qaadaysaa warar hoose oo sheegaya kala duwanaansho ka dhex jira hoggaanka Israa'iil kuwaasi oo ku saabsan in dagaalka la sii wado iyo in kale, gaar ahaan kadib markii hoggaanka siyaasadeed ay ku soo jeediyeen waa sida hadalka loo yiri guusha laga gaaray Iiraan in loo adeegsado sidii fursad siyaasadeed loogu gaaro heshiis isweydaarsi maxaabiis ah halkii laga geli lahaa dagaal dheer oo aan la hubin dhammaadkiisa waxa uu noqon doono. Al-Haylah oo ka hadlayay falanqayntiisa ayaa waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan uu ahaa mid xudun ah, isla markaana Trump uu fahmay in sii socoshada dagaalka Gaza ay khatar ku yahay xasiloonida gobolka, gaar ahaan danaha tamarta ee Mareykanka. sidaas darteedna uu cadaadis ku saarayo gaarista heshiiska siyaasadeed ee lagu joojinayo dagaalka. fursad doorasho
waxa uu sidoo kale tilmaamay qabiirku in Netanyahu uu arko waxa uu ugu yeeray guusha laga gaaray Iran inay tahay fursad doorasho oo u saamixi karta in uu ka baxo Gaza iyadoo aan loo arkin in uu guul dareystay tani oo u suurtagelin karta in uu aado doorasho oo uu ku galayo guul uu ka helay dibadda iyo tanaasul gudaha ah kuna saabsan fashilka military iyada oo la jaan qaadaysa ra'yiga shacabka Israa'iil oo hadda door bidaya in la joojiyo dagaalka si loo gaaro heshiis ay ugu arkaan iyagu badbaado dhinaca kale waqtiga la weeraray ee Iran waxa uu siiyay Netanyahu fursad dahabi ah oo uu ku soo celin karo sumcadiisa hoos u dhacday oo ay uguna muuqdo hogaamiye guuleystay taasi oo u saamaxaysa inuu ku qanciyo taageerayaashiisa midigta fog ee ku aadan baahida loo qabo in la joojiyo howlgalka Gaza iyadoo aan la lumin sharciyadiisa siyaasadeed ama u ekaan mid u jilcay cadaadiska gudaha iyo kan dibadda uga imaanaya dhankiisa Dr. Mohamed Mustafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Israa'iil ayaa rumaysan in dagaalka Iran uu ahaa isbedel weyn oo ku yimid xisaabaha Israa'iil maadaama Netanyahu uu ka hor weerarka ka cabsanayay in uu joojiyo dagaalka sabab la xiriira suurtagalnimada ay xukuumaddiisa ah inay dhacdo balse maanta uu si kalsooni leh u dhaqaaqayo kadib markii la cadeeyay in garabka midig uu taageerayo isaga isla markaana uu diyaar u yahay in uu sabab u keeno heshiis kasta oo mustaqbalka dhaca waxaa xusid mudan in golaha wasiirada ee Israa'iil ay soo gabangabeeyeen shir amni iyagoo aan gaarin go'aan kaba dambeys ah oo ku saabsan sii wadida dagaalka ama aqbalka heshiiska cusub ee lagu wado in la gaaro taasi oo falanqeeyaashu ay u arkaan calaamad muujinaysa kala duwanaansho ka dhex jirta maamulka talada haya gaar ahaan iyada oo wasiirada xagjirka ah sida Smotrich iyo sidoo kale Itamar Ben-Gvir ay si adag uga soo horjeedaan heshiis kasta xitaa mid ku meel gaar ah si kastaba ha ahaatee xogtu waxay muujinaysaa in Netanyahu uusan hadda lahayn xayiraad xulafo oo hor istaagaysa isla markaana uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhanka heshiis lagu gaarayo xabad joojin 60 maalmood ah inta lagu guda jiro wadahadallo lagu joojinayo dagaalka gebi ahaanba ee si la mid ah isweydaarsiga maxaabiista iyo sidoo kale dib u soo celinta dadka ku nool deegaanada ku dhow Gaza Kenneth Katzman oo ah cilmi baare ku takhasusay daraasaadka istiraatiijiyadeed ayaa qaba in Trump uu Netanyahu u arko saaxiib muhiim ah oo lagu tiirsanaan karo gaar ahaan kadib waa sida uu hadalka u dhigay guusha weerarka Iran laga gaaray taasi oo ka dhigtay mid diyaar u ah inuu ka tanaasulo arrinta Gaza si loo gaaro heshiis goboleed oo meesha ka saaraya xarakada iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas waxaa la ogeyn sida Hamas ay ku aqbalayso heshiis caynkaasi ah xaqiiqooyin adag marka hore Israa'iil ma aysan gaarin midkoodna yoolalka dagaalka oo ma aysan barakicin dadka ma aysan burburin iska caabinta mana aysan sameyn wax kale oo xad dhaaf ah ama guul ah oo ay ka heshay ama ka dhashay dagaalka muddada ay Gaza ka waday taasi oo ka dhigaysa in la saaro nidaam xoog leh iyada oo aan ogolaansho laga helin Falastiiniyiinta taasi oo ah mid aan suurtagal ahayn hadallada sheegaya in hogaamiyaasha Hamas lagu wareejiyo 4 dal oo Carbeed ayuu Katzman ku sheegay malaha wax cadeyn ah oo dhab ah lagama sidoo kale xagga Hamasna lagama ogolaan ama xagga xisbiyada Falastiiniyiinta kale ma ogolaan doonaan kuwaasi oo horey u cadeeyay inay diyaar u yihiin inay ka wada hadlaan xaaladda dagaalka kadib iyadoo aan cidna laga reebin ama lagu amrin iyaga oo ogol in Hamas aysan mustaqbalka ka talin doonin Gaza balse aan la burburin karin ama meesha laga saari karin jiritaankeeda qodobkan Al-Hayla waxa uu ku sheegay in ogolaanshaha Hamas ee xabad joojinta aan macnaheedu ahayn guul darro balse ay tahay ka jawaabid ku salaysan miisaaniyad sida hadaladii uu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett oo ugu baaqay in mar kale la sii daayo maxaabiista kadibna laga wada hadlo mustaqbalka dhaqdhaqaaqa taasi oo muujinaysa isbedel ku yimaaday maskaxda hoggaanka Israa'iiliyiinta iyada oo Trump uu riixayo xal degdeg ah Mustafa waxa uu aaminsan yahay in Netanyahu hadda uu arko joojinta dagaalkan inay tahay fursad ee uu ku xoojinayo fursadihiisa doorasho ee soo socda isagoo adeegsanaya waxa uu ugu yeero guusha Iran isla markaana uu ku rajo weyn yahay isbedel goboleed oo u saamaxa in uu horumariyo xiriirka caadiyeynta haddii ay dhacdo in Hamas aysan si buuxda dib ugu soo muuqan dagaalka kadib Mustafa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay u badan tahay inay aqbasho in Hamas laga saaro talada iyadoo aysan burburin garabkeeda military haddii la damaanad qaado in Israa'iil ay xor noqon doonto inay weeraro sameyso markasta oo ay dareento halis taasi oo la mid ah nidaamkii ay Tel Aviv kula macaamilaysay koonfurta Lebanon
tan iyo markii uu dhammaaday duulaankii ugu dambeeyey ee Lubnaan. waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas waxaa ku eeg barnaamijkii wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN si aad u hesho wararka warbixinada iyo barnaamijyada aynu halkan kusoo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir. tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.